booliiska iyo bangiyada dalka Norway ayaa ka soo saaraya digniino aad u culus kooxo burcad ah kuwa oo ka adeeganaya khadadka internetka iyo teknoolojiyadda. Kooxahan oo xilliyadii hore adeegsan jiray email la isku soo diro iyo sidoo kale SMS mobilada la isugu soo diro, kuwa oo ay ku doonayeen in ay qofka macluumaadkiisa bangiga ku helaan si ay wax uga dhacaan. Hayeeshee waxa ay hadda bangiyada iyo booliiskuba sheegayaan kana digayaan in ay soo bixeen kooxo ka halis badan kuwa oo adeegsanayo QR nambaro ah ka oo marka uu qofku wax ka iibsanayo qadka si guud macluumaadka bangi kaarkiisa laga heli karo. Waxa uuna sheegay Ragnhild Georgeson oo ka mid ah madaxda iyo mas'uuliyiinta bangiga Sparbank Norge in lagu soo wargeliyo dhacdooyin badan oo xatooyo ah kuwa oo ay ku soo wargeliyeen macaamiisha bangigooda. Waxa uuna intaa ku daray in ay hadda sii xoogaysanayaan kooxahan isticmaalaya nambarada QR-ka kuwa oo ay dadweynaha ka dhacayaan lacag xad dhaaf ah maadaama ay horey ugu fashilmeen emailadii iyo SMS-yadii. maadaama uu sheegay madaxan ka tirsan bangiga Sparbank Norge in ay soo saareen digniino aad u culus oo ay dadweynuhu si dhaba u qaateen. Hayeeshee QR-kan hadda la isticmaalaya ayuu sheegay in uu aad halis u yahay oo ay xirfadlayaal aad u sareeyo oo burcad ah kana qaraabata internetka ay adeegsanayaan. Waxa uu ku soo waramay mas'uulkan ka tirsan bangiga Sparbank Norge in ay hadda soo gaarayaan fariimo adag kuwa oo ka imaanayo macaamiishooda oo xatooyo dhanka khadka internetka ah loo geystay. Wuxuuna intaa ku daray in muddo dhowr toddobaad ah ay Norway guud ahaan ka dhacayso arrintan oo ah in dadka marka ay doonayaan in ay wax ka iibsadaan pejka internetka sida Tiisa, Facebook, Marketplace iyo aaladaha kaleba in la weydiinayo oo ay hadda dadka qaar bilaabeen in ay ku xirtaan number QR ah ka oo la doonayo in qofka qiimaha lagula heshiiyo uu halkaasi ku bixiyo oo uu warbixinada kaarkiisa geliyo. Ayuu sheegay in mararka qaar ay kalifto in macluumaadka guud ahaan ee kaarkiisa sida lagu helo intii la doono oo lacag ahna lagala baxo. Waxaana lagu soo waramayaa 2 kiis oo ah kuwii ugu dambeeyay kuwa oo mid ka mid ah lagu dhacay adduun lacageed oo gaaraya 56,000 oo koronka Norwejiga ah, halka mid kale laga dhacay adduun lacageed oo gaaraya 90,000 oo koronka Norwejiga ah, sida uu xaqiijiyay Georgeson oo ka tirsan madaxda iyo mas'uuliyiinta bangiga Sparbank Norge. Martin Halland oo ah madaxa qareemada baaritaanka kiisaska dambiyada ee deegaanada galbeedka Norway ayaa isaguna xaqiijiyay in ay booliisku soo gaarayaan kiisas dhowr ah sanadkan gudihiisa kuwa oo ku saabsan khiyaano lagu khiyaameeyay nambarada QR-ka kuwa oo dhac xoogan lagu geystay bangiyadooda. Waxa uuna intaa ku daray in hay'adaha ammaanka, kuwa garsoorka iyo sidoo kale bangiyaduba ay hadda si wada jira u wadaan baaritaano ku saabsan kiisaskan iyo cidda ka dambayso. Si lamidana waxa uu sheegay in bangiyada ay ka shaqaynayaan sidii ay macaamiishooda uga haqabtiri lahaayeen amni buuxa oo ku saabsan akoonnada uga furan. Arrimaha la isku dhacayo internetka ayaa dunida ku sii xoogaysanayo. Aaladan QR-ka oo ah mid hadda ku soo korodhay dunida ayaa waxa ay mararka qaar ku dhagan yihiin dukaamada, goobaha ganacsiga ka oo kaliya lagaga baahan yahay in aad mobilkaaga kaarka kugu xiran ku aadiso si lacagaha si automatic ah looga jarto. Hayeeshee waxaa dhacda marar badan in QR kale ay dad dul saartaan oo marka la helo macluumaadka bangigaada iyo warbixinta kaarka bangigaada si walbo loo baahdo lacaga intii la doono lagala bixi karo. Arrintan oo ah khatar soo korodha ayaa dadweynaha guud ahaan looga digayaa, waxaana lagu soo waramayaa in xakameynteeda aysan sahlanaan doonin maadaama QR-radan aan la kala saari karin midka saxda ah ee uu qofku wax uga iibsanayo iyo kan la doonayo oo ay tuugadan burcadda ah ee qadka internetka ka qaraabata isticmaalayaan. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdulaahi Shiine.